السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين. الحمد لله ثم الحمد لله. إله سبحانه وتعالى يا مهدس كله. أحبتي في العقيدة، وحنجع على استماعة حديث ونهانتي أدو قابا هدنا فإذا بدن حديث كان كفارس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حديث كان صحيح حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث كان أنسيف عن أولي سنة محون ليه هي وحديث روانتي أدو قابا هدنا وحبذن كتسنيسو فإذا بدنا إلى هذا النبي وحوليه عليه الصلاة والسلام: نعمتان لبن نعمه مغبون فيهما كثير من الناس، ددك بدن كود لبدا نعمدود waxay ku dhex sugan yihiin khasaaro. yani labada nicmadood dadka badankooda kama faa'iideystaan, ghafla ay ku sugan yihiin. labada nicmo markii la joogo ghafil ay ka yihiin, khusraan ay ku dhex sugan yihiin labada nicmadood. limaada? li'annahu labada nicmadood waa laba nicmo qofka bin aadanka hadduu si fiican maxaa la yidhahdaa uu ugu faa'iideysto, si fiican u isticmaalo, waxaa xaqiiqo ah qofkaas in adduunka iyo aakhiraba qofkaas inuu natiijo fiican ka gaari doono, najaax inuu ka gaari doono. waa hadduu si fiican u adeegsado labadan labadan nicmadood. maxaa way labadaas nicmadood? markaasuu nabigu wuxuu nabi calayhi salaatu wasalaam: nicmataani maghbuunun fiihima kathiiru min annaas. idan waa nicmatu sixa waalfaraaq. waa nicmada sixa caafimaadka iyo nicmada waqtigan qofku firaaqada haasto. subxaan allah. bal fiir xadiidkan meel badan ay tilmaamaysaa. run ahaantii qofka bini aadanka markuu caafimaad qabo, hadduu caafimaadkiisa si fiican ugu faa'iideysto, maxaa la yidhahda uu kaga faa'iideysto oo noloshiisa wax badan ku qabto, intuu caafimaadka qabo khayr badan sameeyo, shaqaysto, dadaalo, naftiisa meel fiican isgaarsiiya, nicmadan ilaah subxaana wa tacaala siiya caafimaadka ka faa'iideysto, qofkaasna wuxuu gaarayaa najaax ayuu gaarayaa oo fawz ayuu gaarayaa adduun iyo aakhiraba. maca dalika bilcaks, qofka hadduusan ka faa'iideysanin caafimaadka maanta ilaah subxaana wa tacaala oo siiyey, waxaa laga yaabaa qofkaas in maxaa la yidhahdaa berito kadib, maalin kadib, inuu shalaayo, inuu qomamo u dareemo, maxaa la yidhahdaa uu ندم iyo xasra in qofkaas dareemo ay shalayto. maxaa yeelay maxaan ugu faa'iideysay waa nicmadaas, waa laakiin mar ay ku dhaaftay. waa qad faatatka hada alfursa alcazima. fursadan weyn waa maray ku dhaaftay. waaye والندم لا تنفع شيئا. inaad maxaa la yiraahdaa aad shalayto iyo qomamo iyo waxaas inaad dareento waxba ma ku soo kordhinayso. maxaa yeelay waqtiga waad iska beel dareysay, nicmada caafimaadka ilaahay ku siiyey waad ka faa'iideysay weysay. haddana sariirtaa seexan tahay, waxaa tahay qof bukaana, qof xanuunsanaa tahay, waxba ma qaban kartid. idan intaad caafimaad qabto, marka nabigu wuxuuna leeyahay marka xadiidkan waa sidii inuu ku dhahayo oo kale, intaad caafimaad qabto caafimaadka ka faa'iideyso. wax kastoo wanaaga aad ku qaban karto adduunyo iyo maxaa la yidhahdaa iyo aakhiraba ku qabso. wax kasta maadiya iyo diiniya, addunya waalaakhira oo faa'iido aad ka helayso ku qabso. idan caafimaadka intaad haysato ka faa'iideyso, intaad caafimaad geysato ka faa'iideyso. sheega labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo nicmooyinka oo ah labada nicmo oo dadka badankoodaba ghaafil ay ka yihiin, ay moogsan yihiin, aysan xasuusneenba, aysan kaga faa'iideysanaynin. waxaa ka mid ah alfaraaq, waqtiga qofka faraaqada haasto. ya allah, maanta waxaa laga yaabaa fursad dahabiya aad u qiimo badan inuu ku soo maro oo maxaa la yidhahdaa waqti badan inaad hesho. waxaa laga yaabaa xili shabaabnimo inaad ku dhex sugan tahay, dhallinyarnimo aad da'yar tahay, haddana maca dalika waqti badan aad haysato. laakiin subxaan allah, waqtigan aad haysato waxaa laga rabay inaad wax badan aad ku qabato, noloshaada horumar fiican inaad ka gaarta laga rabay. laakiin maca dalika maca alasaf ashadiid waxaa laga yaabaa inaadan kaga faa'iideysanayn firaaqooyinka aad haysato. laga yaabaa waqtiga inaad ku dhumiso firaaqooyinkan, inaad tiktok aad gasho maantana aad waqti sidaas aad ku dhumiso, kan fiiri. waxaa laga yaabaa facebook inaad ku dhumiso waqtiga firaaqada aad haysato. waxaa laga yaabaa in fadhi ku dheer meelahaas inaad waqtiga aad ku lumiso.
أنا أتكدي شو وقتي ملاسن فائدة لهن أما عيار الناس كداوتيت وحيابها صودا وحيابها وقتي بدنا أنا كمان تأكد له إذن يقولون الوقت كالذهب وحيدها الوقت وسيد الذهب كوكله ولكن أقول الوقت أغلى من الذهب الوقت أغلى من الذهب واللؤلؤ وهذه الأمور كلها لماذا أقول ذلك صابت أن أولي هاي وقتي وحقيقي ما بدن ذهب كي وحيابان أن يقيق بدن هاي وإذا تكو حيدها وقتي وسيد الذهب كوكله دهان أنا جنو حان آمن سنة هاي وقتي إنيتهاي نولشاد وقتي إنيتهاي عمري جاجا إذن شيء عمري جاجا أو ما أنت قيمة هذا أد وحكة لك قيمين كرتو ما أنت ذهب دل لهم مجاري كرتو ويلي عمري جاجا إيه نولشاد ذهب يعني اسمه قيمة معهن عمري جاجا مرة بيه وحياتي جاجا نولشاد كقيمة بدن وحول بو ومحايا لي ولقي أبا ذهب كيوم حالي هذا إيوه هنتي أدون به هدي أد ما أنت أدويدو هداد ذاشد بعد الجد والاجتهاد ربما تجد مرة أخرى ربما تسترجع مرة أخرى ولقيها بين الدب سعشته هدو كالمو لعب إيه هانتي الذهب لكن أسألك بالله إله سبحانه وتعالى هو ودي سنيا هدي هل ساعدت مانت أكالمو أما الله بس ساعدت أكالمتو أما هل مال سيدة مانت أتكون بالدراسة أتكون مسو ملا أبو ذا قفك أما دمان أمدنا تسكو إمادان حتى ولو اجتمعوا الأمة كلهم أن يسترجعوا أن يعيدوا هذا الساعة التي فاتت ما أودان ما أودان وما دنا هذا إسكوي ماذا سي هل كان ساعدات أي نجتكتي إن ندب أسرع عشان ما أودنا لكن ولا جيابا هنت دكالو ما ذهب وحيابا صار ولا جينا تشوف إذن الوقت أغلى شيء الوقت هي عمرك الوقت هي حياتك حسن البصري رحمه الله تعالى وحده جري يا ابن آدم إنما أنت الأيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك ما معنى يعني هذا الكلام وحوليها يا ابن آدم أديك دن وحتى مال مصعتها تهاي أديك دن عمري جاga ومال مقابل إذا ذهب يومك مال هدو سيداس كتاغو أو مال نلش هذا كم هذا سيداس أي كتاغتو ذهب بعضك قيب كم ذا عمري جاga يا سيداس كتاغتي إذن مال مهاني وقت يدن فراخها أن كعيارنا أم أن ديلينو وقيب كم ذا عمري أنا أن حلي هذا أن اسكبل دراني إذن مركب حديث كان وعجيب حديث كان وعجيب لكن ما حديث كان واحد مدة إن ما تزمن كأنك أن جونو فسرايو محايلة ما أنت وحا اسكفضت بقفك وقت إنه وحبدن كدلو وحبدن إنه كل مية اسكفضت إذن أخي الكريم وأختي الكريمة رنهانتي وإذن جعل هاي خير وناقن الجعل هاي اسكود يا فرصة قيمها بدن أو إله سبحانه وتعالى إذن سيه النعمة فربدن أو إله نسيه لوذا نعمة سيجار أهانا نعمة عافمات كالصحة هي نعمة محل رضا فراخها أي وقتها والشيء آدي أدو قيمة بدن أن وحبا محل رضا أن لو دورين كرين أما لو بدلين كرين إذن وحايدين كعسنا إياه إنها تكفايدي ستان عافمات كاد هيست إنها تكفايدي ستو وقتها آد هيست فراخدنا عمري قاقه إنها تكفايدي ستو وحايدين كعسنا إياه فيديو هادو إدي سوغارو ولا ليه نكاله إنها تقاسيسان محاي كادي بيسامان تهداد شر أسيمي سيدتك لا كدا سيرتي سيدتك وقارو أي ندتك أي كفايديستان أدين إله سبحانه وتعالى أجر حسنات بدنات كهليسا مثل مدت كهليسا إذا مركو حايدين كعسانية إن تشير هذا يوتيوب كنا دات كعسبتين إن تسوق محل إرادة سبسكرايب أسارتان إن بدنات جاسيسان وباهنتهاي دعوة خير كأن مروا بأن نلجأ على هاي دتك سيدو كلا لجأ على هذا دتك كلا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.